ومهم هويدا إن أي جرانيسو habab ka saxan ee loo qabta dhalaanka ama ilmaha xilliga ay nuujinayso si ilmuhu u helaan xaddiga caanaha ay u baahan yihiin iyo nafaqo ku filan. Haddaba inta aan u gudagelin hababka saxan ee loo qabta ilmaha, waxaan si gaar ah idinkaga codsanayaa in aad muuqaalka share gareysaan oo aad gaarsiisaan asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iideystaan. Sidoo kale xagga hoos ka bac ama meeshan ku dheh qaar ka mid ah hooyooyinka aad jeceshahay in ay muuqaalkan ka faa'iideystaan. Muuqaalka laagsaar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo galiyo. Mahadsan. Waxaa jira habab badan oo hooyooyinka u qaban kara dhalaanka ama carruurta xilliyada ay nuujinayaan. Haddaba waxaan doonayaa in aan wax idinkaga sheego qaar ka mid ah hababka ugu saxan ee hooyadu u qaban karto carruurta xilliga ay nuujinayso si ilmuhu u helaan xaddiga caanaha ay u baahan yihiin. Qaabada ama habka ugu horeeya aan ku bilaabi doono oo hooyadu u qaban karto dhalaanka ama ilmaha waa qaabada. Ilmuhu waxaa loo baahan yahay in ay dhinac u jiifaan oo hal dhinac u jiifaan ayaa loo baahan yahay. Looma baahno in ilmuhu ay hooyada saan u heeso oo qoortooda saan u soo jeediso. Maxaa yeelay cuna mareenkii ayaa xirmaayo. Waxaa loo baahan yahay qaabadan in gacanta suulka iyo farahan in madax saan loogu qabto ayaa loo baahan yahay. Ilmuhuna ay hal dhinac u jiifaan. Sidoo kale lugaha ilmaha waa in ay gacantaada ay ku hor jiraan ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale qaabadan waa in gacantaada qaybtan waxaa ku qabatay madaxa ay farta iyo suulka madaxaasaan ugu qabanaysaa. qaybtan kale gacantana waa in aad ku caawisaa ama ku taageertaa qaybta dambe barida iyo dhabarka saana ugu qabanaysaa. Gacantan inaad asiga canuga inaasan ugu qabatida loo baahan yahay. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay ilmuhu in ay awood u leeyihiin in ay kor u soo eegaan wajiga hooyada inay kor u soo eegaan ay loo baahan yahay. Sidoo kale waa in ilmuhu aadan ku daboolin caloosha ama laabtaada in aadan ku cariirinin ama ku daboolin ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale caloosha ma ahan in ay xagga sartaan ugu soo jeedo. Waxaa loo baahan yahay caloosha iyo laabtaada inaasan isugu qabatid ayaa loo baahan yahay. Ilmuhu ay dhinac u jirtaan. Ma arin waa samayn kartaa marka sidaan u haysid. Ilmaha naaska waxaa ku qaban kartaa gacantan kale ayaad ku qabanaysaa saan waad ku caabin kartaa. Mararka qaarna haddii ilmuhu ay jaqi karaan oo aad dareentid inay jaqi karaan waa u deynaysaa ayaga ayaa si toos ah afka u gashanay. Laakiin mar walba waxaa wanaagsan in aad caabiso ayaa wanaagsan. Guud ahaan hooyooyinka way samayn karaan. Si gaar ah waxay aad ugu wanaagsan tahay hooyooyinka dhala carruurta miisaankooda uu hooseeyo ama carruurta ay aad ka u yar. Sidoo kale waxaa aad u samayn karo hooyooyinka qaliinka ku dhalay. Iyana habkan inay sameeyaan ayaa loo baahan yahay. Iyo hooyooyinka horaadkooda uu weyn yahay isla markaasna ibtooda ay yartahay. Haddii aan u gudgalo habka ama qaabka labaad ee hooyadu u nuujin karto dhalaanka ama carruurta. Inta badan habkan waxa adeegsada ama hooyooyinka waxaa wanaagsan in ay adeegsadaan xilliyada ay daalan yihiin isla markaasna ay doonayaan in ay dhalaanka ama carruurta ay nuujiyaan. Sidoo kale waxa aad u wanaagsan inay adeegsadaan hooyooyinka heesta dhalaanka ama ilmaha jaqida ay ku adagtahay iyo hooyooyinka qaliinka ku dhalay. Habkan waxaa loo sameeyaa sida tan. Hooyadu waa in ay ku tiirsataa ama xagga dambe ay dhigataa barkimo. Haddii ay kursi ku fadhiso ama sariirteeda ku fadhiso mar walba waxaa wanaagsan xagga dambe in ay barkin dhigato ay sidaan in yar ugu seexato. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay ilmuhu in ay sidaan u qabato qaybta dambe dhabarka iyo qaybta dambe waa in gacanteeda ay sidaan ugu qabato ay ku beegtaa naaska. Waxaan u gudgalayaa qaabada ama habka saddexaad ee hooyadu u qaban karto dhalaanka ama carruurta. Habkan waa habka ugu caansan ee hooyooyinka u nuujiyaan dhalaanka. Waxa hooyada laga doonayaa in ay ilmuhu ay u seexisa dhinac u seexisa ayaa loo baahan yahay. Isla markaasna calooshooda iyo laabtaada waa inaad isku beegtaa. Sidoo kale gacantan qaybta suulka iyo farta waxaa loo baahan yahay in aad ku caabisid madaxa saan oo kale inaad ugu qabatid. qaybtan gacanta iyana waa in aad ku caabisaa dhabarka iyo qaybta dambe ee dhalaanka. Saan ayaa loo baahan yahay inaad u qabatid. Waxaa qalad ah in ilmuhu eego saan u jiifo qoortooda aad saan u soo jeediso. Waxaa yeelay haddii aad qoortaada soo jeediso eego ilmaha sida tan waxa xidhmaayo cuna mareenkii ayaa xidhmaayo. Ilmuhu way ku adag tahay in caanuhu ay laqaan ama caanuhu ay jiqaan. Sidoo kale ilmuhu waa in ay awood u leeyihiin in ay si fudud ay
wejigaaga u soo eegi karaan waxaa loo baahan yahay sidaan oo kale inaad u qabato si isku mid ah ayaa madaxa saan ugu qabanaysaa qaybtan dambena waxaa loo baahan yahay in aad ku caawisid dhabarka iyo qaybta dambe ee dhalaanka sidoo kale haddii aad dareento ilmuhu inay caawinaad u baahan yihiin ama naasku aysan jaqi karin waxaad ku caawinaysaa gacantaada kale sida sidoo kale inaad qabatid ayaa loo baahan yahay naaska in aad ibtisaan ugu qabatid oo aad afka u gelisid haddii aad dareento in ay jaqi karaan looma baahna inaad caabisid sidoo kale haddii ilmuhu miisaankoodu aad u yar yahay ama bila dhiman ay ku dhasheen ama hooyada ibteeda aad u yar yihiin waxaa loo baahan yahay in aad qaabadii hadoo kale aad u qabatid suulka iyo fartan waxaa loo baahan yahay in aad madaxa aad ku celiso madaxsaan aad ugu qabato sidoo kale gacanta qaybteeda kalena waxaa loo baahan yahay dhabarka iyo qaybta dambe ee dhalaanka inaad saan aad uga caabiso gacantana waa in aad ku qabataa naaska oo aad afka saan ugu gelisaa intaas kadib waxaan u gudgalayaa habka ama qaabada afaraad oo qaababka ugu dhibka badan ay adeegsadaan hooyooyinka xilliga naas nuujinta habkan inta badan waxay adeegsadaan hooyooyinka ama wanaagsan inay adeegsadaan xilliyada ay jiifaan xilliyada habeenkii ay nasanayaan sidoo kale waxay adeegsan karaan hooyadu marka ay xanuun ay ka jiraan foosha kadib hooyadu xanuun marka ka dareemayso inta u dhaxayso labada marinka saxrada iyo marinka kale xanuun hadduu jiro sidoo kale habkan aad ayay u wanaagsan tahay inay adeegsato sidoo kale haddii hooyadu qaliin ku dhashay ama lagu sameeyay cesarean section qaliinkaas ay ku dhashay iyana way adeegsan kartaa si ilmuhu ay u helaan caano ku filan hooyadana ay nuujiso iyadoo jiifto waa in ay sidaan samayso hooyadu waa in ay dhinac ay u seexataa kolkay dhinac u seexato ilmaha ama dhalaanka iyana waa in ay dhinaceeda usoo jeedisaa ay dhinac usoo seexisaa xagga dambe ayay waxay ka dhigaysaa barkin ama wax yaroo ilmaha soo caabiya maadaama dhinac loo soo seexiyey halkan ayay wax ka dhigaysaa oo waxay kusoo beegaysaa naaska midka markaas ay sii rabto ayay kusoo beegaysaa guud ahaan haddii aan soo koobo mar walba waxaa muhiim ah in ilmuhu ay awood ay u leeyihiin in ay wejigaaga ay si fudud kusoo eegaan oo aysan ku fidsaneen laabtaada ama calooshaada sidoo kale ilmuhu waa in koortooda eegoo saan u jiifa inaadan koortooda aad saan usoo laabay iyana waa qalad looma baahna in aad samaysid sidoo kale waxaa loo baahan yahay mar walba in aad ilmaha caawisid oo aad gacantaada aad ku caawisid qaybta dambe lafdhabarta madaxa iyo qaybta dambe ee jirka inaad gacantaada aad ku wada caawisid waxaa jira calaamado aad ku garan kartid in ilmuhu ay ka heleen naaska caano ku filan hore ayaan uga soo hadlay fadlan haddii aad doonaysad calaamadahaas waxaad ka helaysaa YouTube channelkayga iyo waliba Facebook page-kaygaba intaas ayaan ugu soo gabagabeynaya fadlan ha iloobin in aad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay uga faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka like saar page-kana follow leh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo mahadsanid